kooda oo qofkii dhalinyarta ah jaamacadda isagoo ku jira waxa uu aaminayaa inay adag tahay in shaqo la helo qofkii dhalinyarta ah waxa weeyaan laftigiisa isma diyaarinaya kaliya wuxuu ku kalsoonidiisu dhan gelinaya shahaadada yar oo jaamacadda ka qaadanayo tan oo yacni dhibaato badan ay ka imanaysa hadhow tole oo marka tartan la gelay marka 100 qof oo jaamacadda ka soo wada baxay ay amba 50 qof isugu yimaadaan shaqo waxaad ka tahay in la kala saaro deetana waxyaalaha lagu qiimeeyo waxa kamid ah yacni additional skills waxa la yiraahdo amba xirfadaha dheeraadka ee uu qofkaasi leeyahay tusaale ahaan kale qofkan hadduu jaamacad ka soo baxay imse xirfadooda kala dheeraada ayuu leeyahay marka caqabadaha waxa kamid ah in qofkii dhalinyarta marka horeba aanu is dhisin isaga laftigiisu in caqabadaha yacni deegaanka ee amba yacni kala kulmay goob waxbarashadu aaminsan yahay marka horeba inay shaqadu yar tahay laftigeeda ay keensanaysaa in qofkii dhalinyarta ah uu isdhigto xaggan kalena waxa weeyaan systemkii dawladnimada iyo waxbarashada oo qofkan dhalinyarta u diyaarinin waxa weeyaan inuu shaqo uu qabto oo macnaheedu tahay marka hore yacni adduunyada weyn ognahay arbis shaqo qofka la siiyo inteen la siiyo meelo ka shaqeeya lagu sii qoray isagoo jaamacadda dhigta ama yacni college ka dhigta marka taa laftigeeda ma lihin taasina waxay keensanaysaa in qofkii dhalinyarta ay ku adkaato laftigiisu shuruudaha lagu xirayo marka hore la leeyahay yacni waxa looga baahan yahay yacni khibrad shuruudaha badan marka la eego horta company kasta amba yacni shirkad kasta amba goob kasta shaqo bixinaysa iyada xaq u leh waxay ku xulanaysaa qofka laakiin marka la eegayo shuruudaha faraha badan ee qofkan lagu xulanayo iyo duruufta yacni iyo amba waaqiciga yaala dalku isma qabanayaan yacni qofkii markaan la soo siin qofkii markuu jaamacad ka soo baxay isagoo fresh yacni shaqo ahaan oo hore shaqo u qabanin la leeyahay 2 sano amba 5 sano amba 7 sano oo khibrada loo baahan yahay lagu xirayo waxa bay ka dhigtaan dhaqan caadi ka dhigtaan dhammaan shaqooyinku uma baahna khibrad uma baahna marka iyadoo marka horeba jirin yacni siyaasad dhanka carbiska shaqadii oo qofkani aanu soo qaadin amba chance aanu helin oo xaq u lahaa waxa weeyaan systemka jira oo xaq u lahaa in la siiyo yacni carbis shaqo waxay keensataa yacni caqabado badan bay yacni qofkii ku keensataa oo waa tasababaysa in dhalinyaro badani ay markay arkaan waxay ka soo bixi karayaan cilmi ahaan khibrad ahaan ay uga haraan marka waxa weeyaan waxyaalaha ugu yacni macquulsan in aan oran karayo yacni waa lagu xulanaya yacni waa waxyaalo kala duwan laakiin nidaamkan amba qaabkan amba siyaasaddan ay u dejiyeen waxa weeyaan qolooyinka shaqo bixiyaashii shuruudaha dhammaan shuruudahaasi maaha kuwa ku habboon waaqica dalka iyo waxa weeyaan dhalinyarada wax soo baratay toonay shaqo raadiska qofka dhalinyarada waxa looga baahan yahay laba shay baa looga baahan yahay shay waa shay ku saabsan isdhisitaanka naftiisa oo qofkan inuu isagu marka hore soo dhiso waayo ma jiro system caawinaya oo yacni u sahlaya in maadaama ay jirin yacni magaranaysa nidaamka amba qaabkii qofkan loo siin lahaa shaqo carbis aanay jirin maadaama ay jirin suuqi yacni fursadaha marka laga eegayo fursadaha dalka marka xaqiiqada laga hadlay aad bay u kooban yihiin oo ay weyn ognahay shirkadahan gebigoodba 5 kama badna marka la eegayo ugu waaweyn yacni dalku marka maadaama ay tahay in qofka isku dayo inuu isagu shakhsiyan oo isdhiso imka dhalinyarada arkaysa jaamacadii bay yacni ka qalin jabinayaan haddana degree labaad buu doonayay inuu diyaariyo koodhanaya degreegaas fursad shaqo 3 sano haddana taan 4 sano diyaarinayo ayaa fursadii u arkay already meesha ka baxaysa marka mostly waxaan kula taliyaa inay qaataan waxa la yiraahdo partial skills amba xirfadaha yacni dheeraadka